nafaqada tinta waxay ka hortagtaa inay tinta gogo'do ama daadato, sidoo kalena waxay qurxisaa ee xoojisaa tinta. sidaas darteed waxaan halkan ku soo koobaynaa 10 cunto ee nafaqeeya tinta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنالك الدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات الجود يناف مرينكا أما عذرات كودع فيره. هدي أد جنالك كعسوب كاي فضلا سبسكرايب ده سي أدنا على ساعة مر والبفضلا ريح جنب الالك. maanta waxaa ka hadli doonaa 10 cunto ee nafaqeeya tinta. nafaqada tinta waxay ka hortagtaa inay tinta gogo'do ama daadato, sidoo kalena waxay qurxisaa ee xoojisaa tinta. dadka waxay u baahan yihiin timo fiican oo xoog leh, waliba mar walba ay da'dooda sii weynaato ama ay sii badato. timaheena inay si fiican u koraan waxay ku xiran tahay 3 arrin. 1 da'da, 2 dhaxal sidaheena. tusaale, haddii waalidiintaada dhankooda ay yihiin dad timo qurxoon oo caafimaad leh u dhashay, waxaa jira fursad badan oo aad ku heli karto timo aad u caafimaad qabo sidoo kalena qurxoon. 3 cuntada oo qofka isticmaalo ama nafaqada uu markaas uu jirkiisa geliyo. 2 arrin waxba lagama qaban karo, sida dhaxalka iyo da'da. waxba ma laga bedeli karo da'deena iyo dhaxal sidaheena, sababtoo ah da'da qofka lagama bedeli karo, sidoo kalena dhaxal sidaha qofka intuu dhalan ka hor ma dooran karo waalidkiis. sidaas darteedna qofka dhaxal sidihiisa ma dooran karo oo waxba ma ka bedeli karo. waxa kaliya oo wax laga bedeli karo waa qodobka 3 oo ah qofka cuntada uu isticmaalayo. cuntada marka inuu isticmaalo midda ugu muhiimsan oo markaas uu ka helayo nafaqooyinka saxda ah ee tintiisa aad u korinaya ayaa loo baahan yahay. sidaas darteed waxaan halkan ku soo koobaynaa 10 cunto ee nafaqeeya tinta. cuntada koowaad, ukunta. ukunta waxaa ka buuxa proteins, sidoo kalena maado la yiraahdo biotin oo aad tinta u kaalmeynaysa inay si fiican u korto oo caafimaad leh. si ay timahaaga u daadan waxaad u baahan tahay inay heshid borotiin kugu filan. waxaa cilmi baaris la sameeyay lagu sheegay maadadan la yiraahdo biotinka ee laga helo ukunta inay muhiim u tahay in la soo saaro maado la yiraahdo keratin oo ayadana muhiim u ah koriimada tinta. sidoo kale isticmaalka ukunta in laga helo maadooyin ka qayb qaata caafimaadka tinta sida zinc, selenium iyo nafaqooyin kale. cuntada labaad, malayga dufanka leh ama salmonka. salmonka waxaa ka buuxa 3 fatty acids, proteins, selenium, vitamin D3, vitamin B iyo vitamins kale oo nafaqeeya tinta. sidoo kale waxay horseedaan caafimaadka tinta. cilmi baaris lagu sameeyay 120 haween ah waxaa la helay isticmaalka omega 3 fatty acidska ku jiro salmonka in ay aad u yareyso timaha inay gogo'aan. cilmi baaris kalena waxaa lagu helay isticmaalka saliidda malayga inay xoojinayso tinta kana hortagaysa inay timaha daciifaan ama go'aan. cuntada 3, bataati macaanka. bataati macaanka waxaa ka buuxa beta carotene, sidoo kalena vitamin A oo la ogaaday inay timaha aad ugu fiican yihiin. cilmi baaris la sameeyay waxaa lagu helay in vitamin A-ga uu sababo in la soo saaro maado la yiraahdo sebum oo timaha u fiican, sidoo kalena caafimaadkooda mas'uul ka ah. sidoo kale vitamin A-ga wuxuu dardar geliyaa koriimada tinta iyo in la helo timo xoog leh oo aan go'in. cuntada 4, avogadada. avogadada waxaa ka buuxa dufan fiican, vitamin E iyo antioxidants sababaya inay tinta si fiican u korto. cilmi baaris la sameeyay waxaa lagu helay in isticmaalka vitamin E-ga 34.5 uu kor u qaadayo koriimada tinta. sidoo kale vitamin E-ga wuxuu kor u qaadayaa caafimaadka maqaarka ku hareeraysan tinta. cuntada 5, lowska. lowska waxaa ka heli kartaa 34% vitamin E-ga aad u baahan tahay si timahaaga caafimaadkooda u wanaagsanaado. waxaa kaloo laga heli karaa lowska vitamin B, zinc iyo essential fatty acids oo muhiim u ah nafaqeynta tinta oo haddii la waayo tinta ay gurmayso. lowska uma ahan faa'iido tinta keliya, sidoo kale wuxuu faa'iido weyn u yahay inuu yareeyo caabuqa jirka iyo xanuunada wadnaha. cuntada 6, barbarooniga. barbarooniga waxaa ka buuxa vitamin C iyo vitamin A oo aad u kaalmeynaya timaha inay si fiican u koraan. barbarooniga nooca jaallaha ah ayaa vitamin C-ga ugu badan laga helaa. vitamin C-ga wuxuu jirkeena ku kaalmeeyaa in la soo saaro maadooyin xoojinaya tinta, sidoo kale korinaya sida maadada collagen-ta la yiraahdo oo aad muhiim ugu ah jirkeena. sidoo kale barbarooniga wuxuu ka caawinayaa in la soo saaro maado la yiraahdo sebum oo tinta aad ugu fiican oo muhiimna u ah. cuntada 7, digirta ama cambuulada. digirta waxaa ka buuxa proteins kaalmeynaya tinta inay si fiican u korto, sidoo kale waxaa ku jira zinc,
iron, folate iyo biotin kulligoodna waxay ka caawinayaan inay timaha si caafimaad leh u koraan go'itaankana ka hortagaan. sidoo kale waxaa muhiim ah inaan isxasuusino inay tahay cuntooyinka ugu raqiisan adduunka intiisa badan oo meel walba laga heli karo cambuulada. sidaas darteed si fudud ayaan uga faa'iidaysan karnaa mar walba haddii ilaahayna siiyo. cuntada sideedaad, hilibka waxaa ka buuxa borotiin kaa caawinaya timaha inaysan go'in. waxaa kaloo hilibka ka buuxa iron, taasoo kaalmeynaysa in unugyo cusub ee dhiigga ah la soo saaro, weliba unugyada cascas ee dhiigga, kuwaasoo kaa kaalmeynaya inay quudiyaan timaha iyo jirka intiisa kale. cilmi baaris la sameeyey ayaa lagu sheegay in dadka isticmaalka borotiinka uu aadka ugu yar yahay timahoodana ay aad u gogo'aan, sidoo kalena xaaladooda caafimaad ee tintana in ay aad u liidato. cuntada sagaalaad, koostada waxaa ka buuxa vitamins iyo iron muhiim u ah koriimada tinta. sidoo kale waxay nadiifisaa wasaqda ama sunta dili karta timaha, koriimadoodana caqabad ku noqon karto. haddii la waayo vitaminska sida vitamin A, vitamin C iyo iron, waxaa fududaanaysa inay timaha go'aan ama la waayo. sidaas darteed koostada aad ayay muhiim noogu tahay, waana soo aragnay dhinacyo badan inay aad noo kaalmeynayso, sida difaaca jirka iyo inuu beerka iska saaro wasaqda ama sunta inuu iska nadiifiyo. cunnada tobanaad, bocor hindiga waxaa ka buuxa iron, vitamin A, vitamin C, vitamin E iyo beta carotene. kulligood waxay kaa caawinayaan inay dhaawacyada iyo dhibka tinta soo gaaray ay daweeyaan. sidoo kalena waxaad ka helaysaa bocorka borotiinis u roon tinta. wax walba aad cunto waxay saameyn ku leedahay caafimaadka jirkaaga. haddii aad weysid nafaqooyinka qaar sida vitaminiska, ironta, biotinka, borotiinka iyo essential fatty acidska oo aad ka heli karto cunnooyinka aan ka soo hadalnay, waxa aad arki kartaa in timahaaga ay si tartiiba u gurmayaan, hadhowna timaha qayb ka mid ah in la waayo ama si toosa in timahaaga ay u haadaan ama timihii oo dhan inay kaa dhammaadaan. fadlan ku dadaal isticmaalka cuntooyinkan haddii aad heli karto. haddii aadan heli karinna ilaahay ha ku siiyo. intaas waa talo caafimaad. wax walba si aad u qabato waxaad u baahan tahay inaad ku baraarugsan tahay, og tahay. sidaas darteed waxaan mar walba idinla garab taagannahay inaan idin siino talooyin caafimaad ugu wanaagsan oo la hubo, kuna salaysan aqoon la xaqiijiyey, qof walbana heli karo. waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideen fiidiyogan. insha allah usbuuc walba waxaan soo dhigi doonaa 3 fiidiyo oo muhiim ah. wixii tale iyo tusaale ah fadlan inoogu soo dir commentiga. sidoo kale inoogu soo dir commentiga mawduucii aad danaynaysa in laga soo hadlo. si aad mar walba noola socoto fadlan subscribe saar. aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal. waa inoo mar kale iyo fiidiyo kale insha allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.